نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. بارك الله فيكم. إلهي سبحانه وتعالى noo doortay dad aad u badan inay naga soo dhex saaro oo taariikh aad u adag oo aad u weyn oo qiimo leh inaasaga halkan waxoogaa ku xusno sheekhaa hadda ka soo hadlay oo baska noogu waxeeyey waxoogaa yar si aan u fahanno markii nebiga sala allahu alayh wasalam lasoo diray maka waa lagu kacay, waxaa ku kacay qabiilkiisii quraysh oo culamo ah oo xataa diiday yooma carafa inay carafa joogsadaan oo in waxaanu joogsanaynaa musdalifa waa ku kacay oo ka hor yimi nebiga sala allahu alayh wasalam meel alla meelu galu waayey. khadiija bintu khuwaylid gacan yaraha nabiga yahay sala allahu alayh wasalam, haweenkana iyadaa ugu fadli badan, khilaafaa ku jireen. intay noolayd taajirad bay ahayd, way ka celinaysay. adeerkii abu aalib intuu noolaana wuu ka celinayay isagoo gaal ah, mayata abi aalib baa la yidhaha. markay labadaasi israaceen nimankii qurayshaha waxay ka eriyeen maka. daa'ifuu dabca inuu galo, daa'ifna nimankii odhanaya reer thaqiif way soo dhagaxiyey sala allahu alayh wasalam meel alla meel galu waayo. halkan niman ka tegey oo ansaara radiallahu canhum ayaa waxay ku kulmeen mina xajka, iyaga waxay la galeen markaa beecatulqaqaba. nebiga markaa halkan ay soo dejiyeen. anas ibnu maalik wuxuu yidhi dharaartii madiina ugu fiicnayd oo nuuraysay oy udgaysay maartii nebigu soo galay ahayd sala allahu alayh wasalam. waa la farxay. abtiyaashii oo reer beni najaara ayuu la joogay 2 asbuuc. ma garanaysaan abtiyaashaas? waa cabdulmuطalib bay dhaleen. innagu hadda awowgaa war kama haysid wax dhalay iyo qolo maaragtay abti u ah awowgaa garan maysaa. marka akhwaalu nabiyi sal slam baa la odhanayay. markuu soo dhaafay xashiyoo socota waa la isku dhegey, hashi baa lagu dhegey. nebigu wuxuu hashi iska daayay.